بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi ah. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waana idin salaamaya meel walba joogtaan. maalin wanaagsan. maanta mawduuceena wuxuu ku saabsan yahay farqiga u dhexeeyo labada shakhsiyadood ee kala ah INFJ iyo INFP. labadaas shakhsiyadood way isku egyihiin, aad ay isugu egyihiin. mararka qaar hal shakhsiyadood ay u egyihiin, haddana way ku kala duwan yihiin, meel ayay ku kala duwan yihiin. mararka qaar waxaa waaye labada shakhsiyadood waa la isku qaldaa, aad ay isugu egyihiin, aad ay isugu dhow yihiin. dhaqankooda iyo dabeecadahooda aad ay isugu dhow yihiin, marka laakiin waxbay ku kala duwan yihiin. subxaan allah, ayaga dad waxaa waaye romantic ah. labadoodaba waxaa waaye INFJ iyo INFP, labadaba waxaa waaye romantic waay. dad oo waxaa waaye romantic ah, dad waxaa waaye wax curinta jecel, dad waxaa waaye kelinimada jecel. way isaga egyihiin, intaasoo dhan way isaga egyihiin. xiriirada waxay jecel yihiin oo salka adag leh ayay jecel yihiin, oo ayaga waxay necab yihiin markay xaaskaaga ay tahay ama seygaaga uu yahay. labadan shakhsiyadood midkood waxaa waaye waxay necab yihiin buuqa, waxay necab yihiin iska hor imaadka, waxay necab yihiin qalqalka iyo guriga wax ka dhacay necab yihiin. waxay jecel yihiin deganaan, waxay jecel yihiin nabad, dad nabadeed oo ayaga maasha allah. iska hor imaadka aaday maxay ahayd u dhibsanayaan in laysku dhaco, way necab yihiin. saas daraadeeda dad waxaa waa ayaga nabad jecel, dad laga nabad gala waa inta badan. ayaga waa laga nabad galaa, aadaa looga nabad galaa. dad aada u degan oo nabada jecel oo xishood badan waa inta weyihiin. marka waxay ku kala duwan yihiin meelo yar yar ayay ku kala duwan yihiin. in INFP uu jecel yahay perfect inuu ahaado, inay jecel yihiin kaamil mutakaamil inay ahaadaan ay jecel yihiin. meeshaas way ku kala baxayaan. wax waliba inay ahaadaan perfect inay jecel yihiin. waxay ku wanaagsan yihiin INFP waxay ku wanaagsan yihiin arrimaha maaliyadda iyo nidaamka ayay ku wanaagsan yihiin. marka ayaga ay rabaan nidaamintooda, marka ayaga ay rabaan waay arrimaha maaliyadda iyo xisaabaadka, iyo marka ayaga ay rabaan waay wax walba marka ayaga rabaan waay. markayna rabin waxaa kuma wanaagsana. waayo mararka qaar waxaad arkaysaa inay yihiin dad fowda ah oo gurigooda isdhexyaacsan yahay ayaad arkaysaa mararka qaar. haddii ay noqoto naqdintaada inaanay ahayn mid, haddii ay noqoto naqdintaada markaad dhaliilaysid ay ahayd dhaliishaada aanay ahayn mid sax ah oo qofkii aad ku dhaawaceysto oo asiga aad ugu dan leedahay, ma ku cafinayo INFP. INFJ waxaa waaye cudur daara ku sameynaya, xole iska dhaaf waxaan caqligiisa intaas, laakiin kan maya, ma ku cafinayo. soo waxaa waaye wuxuu u qaadanayaa arrin shakhsiyadeed ayay u qaadanayaan. waana arrin shakhsi waa marka qofka naqdintiisa ama dhaliishiisa aanay sax ahayn oo meel toos aanay ku heenin. soo arrin shakhsi ah waaye. laakiin INFJ inuu iska dhaafo fudud oo maxay ahayd oo dan iyo heel aanu ka galna fudud. laakiin INFP markaa yeelaayo, soo waxaa waaye arrin shakhsi ayay noqotay. ma aqbalayaan amar ku taagleynta, ma aqbalayaan amar ku taagleynta. khaasatan INFP waxaa waaye ma ogolaanayo abadan. markay guur ay imaatana waxaa waaye wuxuu kugu qasbaya shakhsiga INFP in maxay ahayd aad ixtiraamtid oo xuduudiisa aadan gudbin. xuduud uu leeyahay, xuduud adag ay weliba leeyihiin inaadan soo gudbin. wayna kugu qasbaya in xuduud ayaga ay leeyihiin aadan soo gudbin. way ku barayaan, weliba aaday kuu barayaan. soo waxay jecel yihiin oo meeshaan ku kala baxayaan akhrinta riwaayadaha iyo sheekooyinka ayay jecel yihiin. filimada iyo sheekooyinkaas ay jecel yihiin. INFP sheekooyinkaas aad ayay u jecel yihiin. laakiin INFJ waxay jecel yihiin INFJ akhrinta falsafadaha, cilmi nafsiga, sheekooyinka mala abaalka, sheekooyinka khiyaaliga aaday u jecel yihiin. maasha allah, dad waxaa mala abaalka aad ugu dheereeya waa sooma. oo mararka qaar waxaad arkaysaa inay leeyihiin nolol qaas oo caalamkan hadda aan joogno aan ahayn. caalamkan iyo noloshaan uu ku nool yahay qofku waa ku nool yahay waa aragtaa. laakiin INFJ waxaa awood u leeyahay inuu abuurto ama uu sameysto shakhsiyad kale, inuu sameysto nolol kaleenta oo nolosha kaleenta oo mala abaalkiisa oo malihiisa oo intuu fariisto keligiisa oo caalamkii kaleenta u dhexgalaayo ay awooddaas u leeyihiin. subxaan allah, waana nicmo ilaahay uu siiyo. waa nicmo waaye. mararka qaar waxaa laga yaabaa in xaalad aad ku sugan tahay aanay ku cajabinin, laakiin awood aad u leedahay in xaalad kaleenta adiga aad abuuratid oo aadan joogin
intay fariistaan maxay ahayd baxayaan ay ku noolaanayaan noloshaas qayaaliga oo quruxda badan oo ayaga ay samaysteen. maasha allah tabaa awooday u leeyihiin. mararka qaar way fiican tahay go-aan qaadashada waxaa ku fiican INFJ ku fiican go-aan qaadashada. labadooda bay qaadanayaan go-aan qaadasho way leeyihiin, laakiin INFJ waxaa waaye wuxuu ku siinayaa fursad walbo ayay ku siinayaan. marka ay go-aan ka qaadanayaan waxaa waaye way yaqaanaan sababta ay u qaadanayaan maxay ahayd waxay u qaadanayaan iyo sababta ay u qaadanayaan inaanay soo noqod lahayn way yaqaanaan. laakiin INFP waxaa waaye way cabsanayaan xataa go-aanka markay imaato in ay cabsanayaan, in ay labalabeynayaan go-aan qaadashadii, in maxay ahayd ay daahaan, inay aad ugu sii daahaan. INFJ xataa waa daahaa, laakiin muxuu ku daahayaa asagoo adiga fursad ku siinayo. wuxuu ku daahaya wuu ogyahay maha cabsi adiga uu kaa cabsanayo inuu ku waayo, maya, inuu fursad ku siinayo ama isbedela ama yani wuxuu ku siinayaa fursado badan ayuu ku siinayaa. marka INFJ markuu ku gooyo amba uu baxaayo uu go-aan qaadashada uu yaqaana. markuu qaadanayo waa mar asaga uu intuu fariistay uu wax walba xal uu sameeyey qofkii shakhsiyadan lahaa oo qofkii kaleenta uu la noolaa uu xal ka waayey uu isbedel ka waayey uu dhaha leeyahay qofkan bes waaye isku soo noqod damba ma jirto. markaasaytu go-aan ku qaadanayo. markuu qaadanayo wuu og yahay inaanu soo laabaneyn. soo haddii ay noloshaada ka baxaan wax soo celin karo malaha, wax soo celin karo malahan. u fiirso dad sabar badnaa haddii ay jiraan oo noloshaada ku jiri jiray oo dulqaad badnaa oo maxay deganaan badnaa oo maxay ahayd ahmus badnaa oo maxay ahayd kuu dulqaadanaya mararka qaar khaladaadkaaga arkaya xataa aan ku xisaabinaynin amba xaaskaaga ahaat amba seegaaga ahaat, laakiin adiga aad khaladaad badan ku sameynaysay oo maalin maalmaha kamid ay noloshaada ka baxeen. bis waa markay dheheen markii wax walba haddii la sameeyay soo laaban waayo. wax walba haddaad u samaysid ma soo laabanayaan. maasha allah tabaarak allah. dhinacaasna waxaa way fiican tahay. waxay ku fiican tahay mararka qaar dadka noloshaada ku jiro dad sumaysan waay soo celinta xataa hadafkooda ma ah inay wax salaxaan ama ay wax hagaajiyaan. waxay ka tahay soo celinta in weli ay ciil qabaan, in weli ay ku dhibaateeyaan. dhinacaas waxaa ku fiican INFJ ku fiican. caatifadooda waxaa waaye saa'id waay xataa markaad u sheegtid dhinacan markaad INFJ aad u sheegtid mashaakil aad u sheegtid iyo markaad u sheegtid INFP mashaakil problemkaaga aad u sheegatid labadoodaba way kula damqanayaan. laakiin INFP ma u qaadanayo, gudihiisa ma gelinayo. so inuu ku xaliyo inuu ku caawiya laga yaabaa shakhsigan. laakiin kuwan INFJ waxay ku noqonaysaa xanuun. waxay dareenkii waxay u qaadanayaan sida qofkii dhibka haayay. mararka qaar in ayaga ay ka xanuun bataana laga yaaba. soo booska qofkii uu taagan yahay ayay galayaan sheekooyinka xanuunka leh. marka haddii aad tahay shakhsiyadan INFJ mar walbana idin sheegaya ha dhagaysanina filmaanta murugta leh, sheekooyinka social media ee xanuunka leh, waxyaabaha mararka qaar sheekooyin waxaa jira mararka qaar mala abaal mararka qaar adiga haddii aad tahay shakhsiyadan waxaa u qaadanaysaa run gudahaagii ayuu galayaa waana ku dhibaateynaya nafsiyan. intii awoodaada waxaa waaye ka leexo sheekooyinka xanuunka badan leh, qisooyinka murugada badan leh, waxyaabaha oo aad ku xanuunka badan leh. filmaantaas haddii xataa filmaan ay yihiin waxaa waaye ka leexo intii awoodaada. waayo nafsiyan way qaadanayaan dareenkii qaadanayaan. subxaan allah way qaadanayaan dareenkii. markaad mashaakil ugu sheekeynaysid labadooda aad rabtid inay ku caawiyaan kan in uu awood u leeyahay in naftiisii iyo maxay ahayd problemka ama mashaakilkii uu kala saaro oo qofkan in asaga uu yahay waxa haysto asaga waajibkiisa ay tahay inuu caawiyo wuu kala saari yaqaana. subxaan allah ilaahay shakhsiyadiisa u sameeyey soo gudihiisii ma u gudbayaan. laakiin kan INFJ wuxuu ku siinayaa dareen, wuxuu ku siinayaa cajiib aaduu kula xanuunsanaya. qofkii dhibka haayay mararka qaar asaga ayaa kaga dhib badnaanaya oo maxay ahayd waxaa laga yaabaa sheekooyin murugle inaad la wadaagtay oo dadka qaar dhib ayagoo heesto, dadka qaar subxaan allah ayagoo dhibkii heesto ayaa haddana maxay ahayd caadi noloshooda ay u arkaan, way kuu sheegayaan caadi ay u arkaan. laakiin qofka aad u sheegtay haddii uu yahay shakhsiyaddan INFJ hadduu yahay rurna u qaadanayaa asaga wax heesto kaleeto u qaadanaya in habeena badan uu la hurdi waayo, inuu ku caawiyo, inuu rabo adiga inuu ku caawiyo, maxaa u caawiyaa qofka, maxaa u samayn karaa, inuu la xanuunsado mararka qaar oo maxaa ahayd oo walwal iyo ku dhaco oo maxaa ahayd
uu ku dhaco maxaa la dhahaa gaas calooleedka oo markii la welwelo oo la murugoodo oo soo kacayo inuu ku kacaa laga yaabaa. Marka nafsiyan iska dhaaf xataa jir ahaan ayay u taabanaysaa. Marka dadka waxaa waaye feelinkooda aad u sareeya waay. laakiin kan INFP waxaa waaye go-aanka markii ay maxay ahayd aad u sheegtid way og yihiin wayna kala saari karaan in waxaan ayaga ay ahayn. qofkan buu og yahay waxaan asaga inaanay haysanin, laakiin dareenkiisii ayaa wuxuu dareemayaa qofkii kale wuxuu dareemaya oo kaleente booskii uu galayaa. subxaanallah, sheekooyinkii murugta lahaay waa dhuuxaya wuu qaadanaya aad u qaadanaya. saas daraadeed ilaahay wuxuu siiyey dadkan hibuu siiyey qof walba shakhsiyad leh. ilaahay waxa uu cabas u sameyn wax walba waxay leeyihin wax. haddaad aragtid shakhsiyadda INFJ, haddaad aragtid mararka qaar meel badan haddii dad badan ay ku kulmaan oo negative ay ka sheekeenayaan, waxyaaba xun ay ka sheekeenayaan, ma xamili karo. ayaga xataa ma isfahamsan. waxaad arkaysaa qofkii oo sii xaluulanaayo oo kasii dhexbaxaa. xataa dadka gurigooda deganaadeyiin oo laalahay markii wax xun la sheekeenaayo ama qof laga sheekeenaayo oo qof la xamanaayo oo kaleente, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa inaanay dhihi karin waxaas joojiya ay ku adag tahay. waxaa laga yaabaa way kacayaan xataa ayagoon ogeen ayay kacayaan tartiibkooda inay u kacaan ee meel kale ka tagayaan. waayo ayag ma og, laakiin waxaas negativekaas way galayaan, aaday u galayaan jirkooda. subxaanallah. marka awood ilaahay uu siiyey waa inay maxay ahayd xataa ayagoon ogeen wixii inay diidmo jirkooda uu sameeyo oo kaco. waxaan aniga ima quseeyo waxna maka qaban kari camal inay kacaan ay tartiib ay u xaluushtaan. qol haddii ay leeyihiin ay qolkooda ku dhuntaan oo laleeyahay aabe heblaay amba hebel qolkiisuu ku jiraa amba qolkeeday ku jirtaa. sabab waxay ka jecel yihiin inay keligood ahaadaan, waana ximaayad amba ilaahay uu xafdinayo waay. soo mararka qaar sheekooyin murugale, sheekooyin xun la keenaa. qofkan waxaa waaye ma xamili karo. subxaanallah, ma xamili karo. laakiin kan shakhsigan INFP waxaa waaye uu ogyahay waxaan in asaga aanay haysanin. kan buu waa ogyahay laakiin dareenkii waa qaadanaya. saas waa shakhsiyadiisa usuustaa kan. laakiin waxaa waajibkii waxaa waaye aniga inaan ku xaliyo, inaan ku caawiyo waay. laakiin ma kula xanuunsanayo oo maxay ahayd wixii saasaan saxe sida saxda. waayo qofkan problemka haysto asuu haystaa. soo adi waajibkaaga inaad xalisid waay, soo ma inaad caawisid waay. haddaad awoodid, haddaadan awoodinna ma awoodid. laakiin qofkan asagoo og ayuu gudihiisii u qaadanaya wixii waa u gudbayaan. shakhsiyadiisa ayaa noocaaseyta mararka qaar inay ka baqaan go-aan qaadashada, inay qaataan go-aan qaldan, taasoo dib u dhigta in ay go-aan qaadan waayaan. INFP waaye mararka qaar waxaa waaye labalabeyna waxay ka cabsanayaan ama aniga go-aankan aan qaata uu noqdaa mid qalad ama aniga go-aankaneyt uu igu noqdaa mid aan sax ahayn. way labalabeynayaan. meesha shakhsiyadan kale ay taqaano go-aan qaadashada, ay taqaano waqtiga ay qaadanaysa iyo sababta ay u qaadanaysa. laba aanay imaaneynin markay go-aanka qaadanaysa. waxaa waaye seefta galka ay kasoo baxdo noqod ma lahan, in wax lagu jaro mooye noqod ma lahan. saasay taqaanaa. waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisa. video waxay intaa kulmi doona waxaa idinkaga tagaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. jaaw.